Hawey Ahmedow waxaa jiro dad dhibaataysan oo xeerada ay ku dhooban oo caruur u badan general guud ahaan gabdhay leeyihiin wiilal leeyihiin odayaal leeyihiin dad birawatay leeyihiin dad oo iska gurguranay leeyihiin marka dadkaas oo dhan general guud curyaamin way iska dayacan wax gacanta ku haya oo hay'adaas hayn Ilaahay weyn abuurtay male marka walaalo waxaan codsanayaa oo warbaahinta adduunka ka codsanayaa inaad horta dadkaas dhibaatada bandhigtaan marka koowaad marka labaadna waxaan codsanayaa ciddii wax u qaban karta muslim iyo hay'ad iyo dawlad iyo local iyo caalamiba in dadkaas la caawiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim magacay waxaa la dhahaa Abdullaahi Cabdu Daahir waxaan ka soo kacay magaalada Bareer aan joogaa Dadaab gobol Dadaab if two west ayaan joogaa waana jabanahay qof jaban ahaa horaan waxaa ahaa qof jab oo naafa ahaa oo biskil ku soconay oo bir iyo biskil ku soconay ahaa haddana waa jabay bishii aan soo dhaafay oo sanadka aan soo dhaafay bishii 3 taariikh bishii 2 taariikh 3 jabay ilaa waagaas waa jiifay sariirtana jiifay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inay caafimaad aan helo kadib marka inta ilaa waagaas dhaqaatiir nimanka reer Koros laba jeer ama Nairobi geeyeen Kenyatta hospital waa la geeyay Kijabi hospital waa la geeyay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ma helin lugteeda waa u jeedaa laba meelood ay ka jaban tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad Allah na siiyo marka xaaladii waa saas mid kale waxaan rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inay caafimaad aan helo kadib maxaan rabaa inay hay'adaha caalamka iyo dawladaha caalamka iyo dadweynaha islaamka iyo Soomaalida adduunka dalka iyo dibadda wixii joogaba waxaan rabaa inay gargaar ila soo gaaraan. Bismillahir Rahmanir Rahim xerada qaxootiga aan ku noolahay ifo qaasatan waxaan ku noolahay ifo 3 waxaan u baahanahay in wadankeena la galiyo waan hay'adda waan nala duwan galiyay waan raasnaan hadda dibana noo dhigay hadda wax anaga hayno male haddana waxaan nala siinaa moordo oo qaleel ah oo idan lahayn sokor lahayn aanan lahayn dhibaato taas aan ku jirnaa hadda waxaan codsanaynaa in dib naloo qaado qarash ma haysan aan isku tagno waxaan ku jooglayn ma hayno shaqana ma hayno wabillahi tawfiiq. waxaan ka hadlayaa in maanta qaxootiga oo waxaan ku noolahay ifo wax fikriyaan deganahay maalintan imaanay ka dhaxlay aniga waxa la yiraahdaa Xaliimo Maqbuul Dheere waxaan ku noolahay maalintan soo degday inta ka dhaxlay waxaan deganahay aqal hoorigaasaan deganahay in guryo nooli dhisin guryo la'aan haysa aan u sheegaynaa hay'adda dhibaatooyinka oo hayso kar waxa xagga dhaqaalaha oo raashinka waxaan qaadanaa badarka boordayda wax kale in la siiyay dhaqaale kale xumo aan haysaa waxaan ana ka hayno ma jirto dhaqaalaheena taas waay haddana waxaan doonaynaa in badar fiican nala siiyo moorday anaka xoolo manihi moorday nala siinayaa dadka Soomaalida dibadda jira waxaan ka codsanaynaa dadka oo dibadda jira Soomaalida waxaan ka codsanaynaa in oo na caawiyaan magayga waxa la yiraahdaa Raaga Aadan Waago oo ku nool ifay 3 marka waxaan ahay nin bukaan socode waxay i joogto aroor oo uuriyaan wali oo wax liga qaban doorka aan qaadano heer waxaan nala siiyo doorkeeda kale nama gaarsiiyo xagga hooyadka qorrax iyo roobka waxaan ugu gambano ma haysano guri noloma dhisin ma haysano hataa baan roobkan ugu onkorno marka waxaan codsanaynaa hay'adda inay guryo ay noo dhisaan oo nolosheena ay si qaable u arkaan oo xagga uuriyaanta ama xagga aniga oo raag ahaantayda bukaan socdaan ahay dadka Soomaalida dibadda jiro oo walaalahayna waxba un codsanaynaa xagga hooyadka iyo xagga nolosha waan ku xunnahay marka waxaan rabnaa waan codsanaynaa inay dhibaatooyinkan ay arkaan ay baloogihi ay soo dhex galaan magacayga Aaminaa Dhaqaatir Jimcaale marka aniga yarka iga xanuunsan yahay waxaad daawana uma helino xal lahay daawo ma lahan cunugaad marka dhaqaatiirta waxay leeyihiin ma lahan wax daawo cunugaad xawka ma qaban karo marka anigana saanaan oo maxay tooyin uma shaqaysan karo
oo kama tegi karo asagoo iska yaalle alaaf kama gashan karo oo iska jiifaa saxara iyo waxaa ma ogu marka rafaadkaasna waan ku qabaa aabihiisna ilama haayo asagoo 1 sano jiraa ugu dambaysa haddana 8 sano jira dhibkaasna wuu sabaa marka ummadda Soomaaliyeed maxaad ka codsan lahayd dibadda jirta ummadda Soomaaliyeed islaamka ama dibadda jirta ama wax lagu tari karaa waxaan ka codsanayaa inay maxay ahayd qof waxay u tari kartaa ama caafimaad ama xaq kale oo nololeed inay ay wax u soo taraan waxaan qortay barayaal ka hor aan qortay in Soomaaliya lagu celiyo hase yeeshee hadda ma helin dadkii baadiyaha Soomaaliyeed ama matakale waxaan ka codsanayaa inay igu celiyaan arribaydi nabadgelyo iyo dadkii dibadii dhanba ay igu celiyaan iyo hay'adii aan ku ay igu celiyaan dhibaatada meesha taalana waayeel baan nahay waxa Ilaahay as uumiyo ka jeenanaan waaysan hadda xaalkan jeenan ma haysto jeenan xumaan ku dhinto waay dhibkaas meeshan ku qabaa waxaan rabaa guri ma qabno curyaana nagu dul nool kaarkeeda waa labaala cunugeeda waa adoon daryeelo malihin wadankan barane oo ninka aan ka sayn aan ku reereyn oo wadankaayna in noola celiyan hay'adda ku codsanayna Soomaaliya markay joogteen maxaa ahaydeen maxaan ahayn anaga marka hore waxaan ku korsanay geel oo nagula koriyo naftaayna nagula barbaari burburkii dhaxdaana caruurtaayna waxaan ku korsanay beeri iyo eriga abaara naga soo lays beerihi abaara ugu soo hadin waa ka haddana saan daryeelo laana ku nahay gurigayna waa ka teendhidii maalintii hore noola taaga weli noo taagan guri kale ma lihi gaari gacan ku dhaansan ma lihi nin noo shaqeey ma laha shaqo ma haysan waa yeelin waan nahay caruurtaayna waa yaryarta aabba waa rabaa hooyo waa rabaa waxaan ku ahayn ma naqaan curyaan waa nugu dul nool leh cunugiis waa agoon waa nugu dul nool leh wixii dhan labadayna ayna adiyaan labadayna shaqo ma hayno waxaan ka codsanaynaa hay'adda ilaahay gacan weyn gacanta dheer in aragayna dibna celin noogu soo bas Bismillahir Rahmanir Rahim magacayga Arda Sidonaya leedahay waxaan ka noolahay magaalada Ifitiri oo YouTube blogay gur la'aan ay haysa raashinkii oo wax fiican lama siiyo ilma liiditaansan way taajurure wax oo aan ka oo sakori wax aan ugu soo gadayna ma ilmihiin aan wax ka soo siirayna ma ilmiya iga baahan sakor la'aan wax aan gacanta u taagayna ma in isoo shaqeynayna ma jiro ninka oo asaga oo ay qaban curyaan meesha iska fadhiya qaarka dambaa laga heystaa gabar curyaan way joogtaa oo aan dhaqaaqaynin wax oo daawo ah kaalmaatay liiseena ma jiro dhibaatooyin kale ay qabtaan waxyaabo dhibka kale ay qabtaan ka hadal waxyaabaha kale ay qabtaan in raashin in siin raashin ma siinay raashin waxay moordo la siinaa moordada ilmaha ma cuna karaa bur yaraana la siiyaa burkina saliidda oo fara badan lama siin saliid yaraana la siiyaa nadeeqayna bisha doorka bana gaarsiinayna Bismillahir Rahmanir Rahim waa jiina cali kulmiye oo degan Ifitiri dhadhaab guryaha aan deganaa waa kana saan u yaala guryaha aan deganahay gurigan waa kana halkan aan ku noolnahay maalin inta hergalnaa habeen inta hergalnaa inta ku noolnahay marka anaga waxaan inaan gurinaga la soo gaaro oo gurina la siiyo oo dhibkaan ilaahay ka soo gaaro laakiin saadankan aan masaacideysaan oo aad noo saacideysaan sababtoo ah guryahan waa gurigan anaga qaas ahaan ilma caruura waxaan oo joogaa curyaamina noo joogaan dhibka ilaaha qaadi kar laakiin adankan inaan saacideysaan ilaahay waa dhib qaade dadka Soomaaliyeed dibadda jira dadka Soomaaliyeed oo dibadaha ku nool oo caalamka ku nool waxaan eegan aan ka rajaynaynaa inay wax noo qabtaan oo wax noo yeelaan oo wax noo sameeyaan oo ilaahay idinkiisa eegan ilaahay soo dhiibay qof wax haysan wax ma dhiibi kartee eegan waxaan rajaynaynaa in wax noo soo raadiyaan wax noo soo qabtaan oo guryahan saan aan naga bedelaan waayo anaga dad nolol fiican ku noolaayn waxaan soo kala bixiyo intana kan waa dagaal waa rabsho waa dhib waxa intana kan kulay waa dareemi kartiin anaga heer xamar anaay dad Muqdisho ka soo qaxaanay dad Muqdisho kan amal ma degano way ogtii Muqdisho waxay degan yihiin in sare iyo dabaqi yihiin dabaqadeena iyo sareen inaga keenna waa waxana keenana kulay waa dhib waa fahmi kartiin marka waxaan rabnaa inaad saan noo soo gurmutaan wax noo qabataan raashin hada waana la siiyaa yoob nagu filnaanin biyo waana la siiyaa ما شاء الله biyaha horta xaqooda